ururka wadaniga ah ee Solardo oo ay kaashanaya hay'adda UNICEF iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada ee gobolka ayaa kulan aqooneed u qabtay ardayda dugsiyada magaalooyinka Arabsiyo iyo magaalada Gabiley tartan aqooneedkan oo ay socotay wacyigelin ku saabsan sidii looga hortagi lahaa xanuunada booliyada isla markaasina ardayda loogu wacyigelin lahaa inay qaataan talaalka isla markaasina fariintaasi u gudbiyaan guud ahaanba dadka iyo xaafadaha ay ka soo jeedaan ayaa ka kala dhacday labada dugsiyo Arabsiyo iyo Gabiley waxaana halkaasi ugu reynba hadallo kooban ka jeediyay Mustafa Saxardi jaamac agaasimaha fulinta ururka Solardo oo ugu reynba ka warramay ujeedada kulankani khibrad dheeraad ah u leh wax ka bedelka hab dhaqanka qaldan ee la xiriira caafimaadka nafaqada iyo nadaafadda hawshan maanta aynu wadno ee tartanka ah mashruucan waxa bixisay hay'adda UNICEF oo maalgelisay waxaana fulinayay ururka Solardo la kaashanay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka markii hore ardaydan tartanka gashay ayaa waxa loo sameeyay wacyigelin ku saabsan talaalka iyo faa'iidadu leeyahay kadib iyaga laftoodii ayaa waxay markaa sameeyeen in iyaguna ardayda intoodii kala gaarsiiyaan muddo ayay soo wadeen maantana waxaan ugu nimid inaanu iyaga ku tartansiino wixii loo sheegay iyo sidii u gudbiyeen sidoo kale halkaasi waxaa ku soo dhaweeyay maamulaha ku-xigeenka waxbarashada gobolka Gabiley Maxamed Aadan Daawud Axmed Cumar Xamdulle maamulaha dugsiga dhexe ee magaalada Gabiley oo iyaguna soo dhaweeyay tartan aqooneedkan wacyigelinta iskugu jira talaalku sidoo ogsoonaayba waxa weeyaan ahmiyad gaar ah ayuu leeyahay dad badan ma fahansana oo talaalka waxa laga yaabaa in aan sidii waxa aan loo dhameystiran carruurta qaarkood wax waa laga talaalaa haddana aan loo dhameystirin waxana jira cudurro badan barnaamijkan wuxuu ku sheegay sidii ardaydu bal ay uga qayb noqon lahaayeen waxaana lagu baray cilmiga talaalka waa Nimcaan Deeg Ibrahim TV qaranka Gabiley.